awdal maanta waxay maraysaa haddaanan run lagu wada hadlin oon miiska la soo fadhiisan meel dheer baa laga doona waxba yaanad noo soo dirin madaxweyne ku-xigeen isagaaba dulman kuwaanu hadlaynu ka mid yahay marka ree awdal la yidhahdaa ku hadlina xuquuqdiinna ee inanka isaaqna calanka yuhuudda loo fasaxo inanka awdalna calanka falastiin lagu xidha islaamka diintay ku jirtaa dastuurshays ku jirtaa ummaddan sidaan wax kula qaybtami karnaa een xuquuq ku heri karnaa waa gadabuursinimo ninkayni taasi deeqaynow ninkaad ummadda u qayqaybinaysaan waa kaa isaga laascaanood ad kula dhimanayseen ee inuu awdal inagula dhinto diiday qoladan maamulka gobolka awdalna waxaan leeyahay ee daraad hanjabaysay hanjabaaddiinnu waa been dadkan tolnimo iyo walaalnimo laynigu keenay inaad ku dhaqdaan haddaydaan ku dhaqaynin sidii kuwii hore ambalaasyo magaalada laynagaga saar sidii kuwii hore ayaa ambalaasyo magaalada ninkoo dhuumanaya laynagaga qaad war hadda cidda xidhan faraha laga soo qaado haddii magaalada aydaan idinku kicinayn oo aydaan rugtaan ugu talagelin hadda faraha laga qaado mudayada aniga iyo xildhibaanka maxamed waxaan xalkan u taagannahay inaan ummaddayada xuquuqdeeda ayaanu taagannahay inaanu helno qodobkayga koowaad ree awdal waxaan leehay war ilowsha dhawadine ah maumul baa tihiin ummadda dayla umushaabaa naxariis buu ilaahay ku surogaa wiilalbay ku dhashaa gabdhay ku dhashaa ima wiilashiinniiba dib iniigu soo noqday iyaga su-aasha u taallaaye bal waxay ku faraxsan yihiin ay heleen inay ummadda la wadaagaan maan doonayn goormay durtaba wax iloobaan war inamadiinnii shuhadada ahaa ee gacanta ka xaqdarani ku dishay waxay u dhinteen idinkoodna helin de inaad damaashaan tahay horta inaan u damaashaadnahay waa xaaraan waxaanan ka digaynaa odayaashu ma wada xumo qaybta bakticunayaasha ah ee inamadooda kolka horena maskaxda ka dilay maantana inay maskaxda ka dilaan doonaya oo ina ummad wax la qaybsan wargadabuursimadnimaa deeqnay midnimadiina ilaashada waxay gadabuursinimo inii goyn weyday jufo iniima goynayso 30 sanaba way inii goyn weyday waa lana ini bartayoo nimanka waddankan maamulaa waa dad ini daraaseeyey oo idinka oon dib iskugu kiin soo celiya war innaga in laysku keen jabiyo maaha innaga in layna qayqaybiyo maaha ummaddan sidaan wax kula qaybtami karnaa een xuquuq ku heri karnaa waa gadabuursinimo ninkayni taasi deeqaynow ummaddan been ha u sheegin kaamana soconayso maanta kaama soconayso ninkaad ummadda u qayqaybinaysaan waa kaa isaga laascaanood ad kula dhimanayseen ee inuu awdal inagula dhinto diiday ma run baan isku sheegnaa mise been kaydii qayqaybinayaa ee maanta inuu ini qaybiyo doonayaay waa kaa laascaanood ad kula dhimanayseen ee awdalna iduu inikula dhinto diiday waa kaa inimadiinniyo qori sidan oo faramaran rasaasta la dhacay waa kaa kuwa hubka sita ee waddan kale ka soo galayana soo fasaxeen rasaas la dhacayn bal umuurta cajaa'ibkee dhacday ma innagay wax inaga sii yihiin mise iyaga wax ka sii innagay wax inaga sii yihiin markay sidaas ma damiir laawayaal baan nahay ma diin laawayaal baan nahay ma munaafiqiin baynu nahay waa shuhaadadii inaga dhimatay dhiiggeedii maanta waxay noo gooyo ummaddani waxay u dhinteen aan helno haddayna taasi dhacayna sidii lagu sii wada joogaya way adkaanaysa ummaddayada in la qayqaybiyona marnaba ciroy kaama oggolaanayno daraad waxaad dadkaaga siidhiga hor sidatay inaa waa xelaan bay ahayd annaguna maanta ummaddayada waxaan uga hadlaynaa oon siidhiga ugu soo qaadan doonnaa in ummaddayada wax hesho
haddayna taasi dhacaynin waxaad adigu diidday annagu yeeli mayno waxa weeye waxba yaanad noo soo dirin madaxweyne ku-xigeen isagaaba dulman kuwaan u hadlaynu ka mid yahay wax alle wax ugu qoranin dastuurka ma jirto alle wax ugu qorani maanta dastuurka oo nala hor iman karaa ma jirto ciday nagaga maqan yihiin waa beesha dhexeen wax wada lahayn in wax la wada yeesho iyo in la kala tago labadaa waxba ma dhexeeyaan maantana mandiqada awdal ku taallaa hadday ree awdal iibin garan waayaan oo caalam oo dhan indhaha ku soo jiheeyey oo intaasoo waddan ku dul dagaalamayaan lax walba dee halkas dhigtaa lagu qalaa godkii horeed ku dhacdeen ku ka xunbaad ku sii dhacaysaa war waxaan ka digaynaa in ummaddayada la qayqaybiyo oy xukuumaddayadu qayqaybiso ha ka dayso dhibta magaaladayada nabadgelyo darra kama jirtee iyadaa nabadgelyo darrada ka abuuraysa qofka bili'aadankii dastuurka wuxuu xaq u siiyey inuu xuquuqdiisa ku hadlo marka ree awdal la yidhahdaa ku hadlina xuquuqdiinna ee inanka isaaqna calanka yuhuudda loo fasaxo inanka awdalna calanka falastiin lagu xidha islaamka diintay ku jirtaa dastuurshays ku jirtaa bal annaga hana loo sheego war hadda cidda xidhan faraha laga soo qaado haddii magaalada aydaan idinku kicinayn oo aydaan rugtaan ugu talagelin hadda faraha laga qaado ummadayada qofka bili'aadankii xorriyatul qowlku dastuurkaa jideeyey somalilan u yaal hadduu da kii qaaxa yahayna waan qaadanaynaa xirxira dadkayaga hadduu ka waddanka u yaalla aan lagu dhaqayn oo kii qaaxa lagu dhaqayn waxba qarsan mayno waxaad qarsataa dare ku qarsadaa uma baahnin markaa maanta in naloo soo diro inama shaqaalo ah iyo madaxweyne ku-xigeenkaa dulmane isagoo markuu qof shaqaalaynayo wasiirula beryo tegaya isagoo madaxweyne ku-xigeen waa ruux laba beelood baan iskugu soo hadhnay somalilan waqooyi galbeed iyo awdal baan iskugu soo hadhnay ee haddaynaad inaan wax qaybtanno aydaan doonaynin ma yeelayno hadday inaydaan wax qaybtanno aydaan doonayn waad ogeydeen jimcadda qurama ka dhaxaysa daraad markii laga hadlayo waqooyi bari inay soomaaliya tahay waqooyi galbeedna ay awdal sii socoto war maad sii socoshadaa dee u fasaxa haddaydaan rabin awdal iyadaa ayni rabta mid haddaad doonaysaan inaan sii wada joogno miiska soo fadhiista wax lagu qaybtamayo horta wakhtigii laysku sheegayey ama dee dadka been loola soo dhuumanaya waan soo dhaafay awdal maanta waxay maraysaa haddaanan run lagu wada hadlin oon miiska la soo fadhiisan meel dheer baa laga doonay meel dheer baa laga doonay qoladan maamulka gobolka awdalna waxaan leeyahay ee daraad hanjabaysay hanjabaaddiinnu waa been dadkan tolnimo iyo walaalnima laynigu keenay inaad ku dhaqdaan haddaydaan ku dhaqaynin sidii kuwii hore ambalaasyo magaalada laynagaga saar sidii kuwii hore ayaa ambalaasyo magaalada ninkoo dhuumanaya laynagaga qaad war ummaddani ma aha ummaddii loo hanjabaya adeed ma aha ummaddii been loo sheegay ama waddankan waa la yeelan ama waa la kala teg war walaalayaal ree sheekh isxaaqow malaha hadalku wayni ag maraayo dhegihiinna ma galo hali khaliif galeen maalintii awni lahaa war maanta somalilanna puntlandna waxbay yima yaallaan soomaaliyana waxbay yima yaallaan ee soo fadhiisto bal sida wax loo yeelanayo aynu kala qoranee diideen wataa waqooyi bari ku tegta maanta waxaani leenahay tiiteedii ee soo fadhiisto oo waxaan wada yeelanee bal sidaan wax u kala yeelanay innagu waxaan kala qoranno haddayna taasi dhacayna meel dheer baa laga doonay awdal. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.